nadaafadda afka iyo caafimaadka. Inaad ku dadaasho nadaafadda afka waxay u fiican tahay caafimaadkaaga oo dhan. Haddii nadaafadda afkaagu liidato, waxay ku hogaaminaysaa dhibaatooyin afka iyo jirka ah. Kuwan ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ka dhasha nadaafad xumada afka: xanuuno xagga wadnaha ah, bakteeriyada ku dhalatay kuna dhex raabuqday afka ayaa gudaha caloosha ku laabanaysa iyadoo raacaysa qulqulka dhiigga, kadibna waxay isku xindaabaysaa duleelka xididka, mamnuucaysana habsami u socodka dhiigga, kadibna dhiiggu kala xirmo, wadnuhuna ku istaago. xasuus la'aan: bakteeriyadii raacday dhiigga ayaa u socdaalaysa maskaxda iyadoo sidoo kale dhiigga ka xiraysa unugyada qaabilsan xasuusta. Waxay bakteeriyadan sababtaa xanuunka laleelmada. Sida ku xusan daraasad lagu sameeyay waxyaabaha sababa xanuunka laleelmada, ayaa lagu sheegay in 60% xanuunkan ay keento bakteeriyada ku dhalatay afka. neefleyda: caafimaad qabka afku wuxuu saameyn weyn ku leeyahay caafimaad qabka neefleyda. Bakteeriyada ku dhalatay afka ayaa dib ugu laabanaysa hawo-mareenada sambabka, kuna dhex tarmaysa halkaas, heer ay gaarto in infekshanno iyo xanuuno kale ku dhashaan halkaas, iyo in kansar sidoo kale ku dhasho.